madaxweynaha door muuqda ayuu qaatay hadday ahaan lahayd waxqabadkiisii muddadii uu joogay iyo meesha maantay oo codsigiisa waqtigii ku habboonaa oo meel fagaaraha uga jeediyey golaha baarlamaanka labada qab dadka magaaladan Muqdisho iyo bulshada gobolka Banaadir ayagoo ka turjumaya dareenkooda ku aadan taageerada madaxweynaha ee codsiga uu jeediyey golaha baarlamaanka ayay maanta isugu soo baxeen dhowr goobood afar goobood oo waaweyn oo ay ayagu go'aansadeen inay ku muujiyaan taageeradooda mudanayaal iyo marwooyin waan idinkaga mahad celinaynaa sida aad u muujinaysaan shucuurtiina sida ay idin nooxisay ay idin dhaqaajisay dareenkiina u kicisay codsigii madaxweynuhu u jeediyey golayaasha baarlamaanka mar haddii shacabka gobolka Banaadir uu dareenkiisa muujiyey madaxweynuhuna labada golo hortooda oo codsigiisii uga jeediyey golayaasha waxay u taallaa jawaabta arrintaasi golayaasha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose arrintaas oo aan filayo in jawaab degdeg ah oo dhammaan bulshada gobolka Banaadir ay ku farxaan inay ka imaan doonto waan hubaa golayaasha baarlamaanku ma aha damiir raawayaal waa dad garanaya waxa ay ugu fadhido magaalada Muqdisho malaayiinta ku nool halkan iyo sida ay ugu heegan yihiin garab istaaga dawladooda baarlamaankooda amniga ka shaqaynta danta guud mar haddii ay ayaguba marqaati ka yihiin doorka aad ku leedihiin dawladnimada Soomaaliya dhidhiba u aasideeda waxaa iska cad oo insha Allah tacaala mar dhow aan rajaynayaa jawaabtii aad ku qanci lahaydeen inay ka timaado